السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولالها إليس واد سلامنتين كسو دواذا حبنتيني نلان نصو انكسو قادن دونو حكمدو كسابسان صبركا جعيلكا يدولقاتكا حكمدهان دمانتود وحانا لو ذاقي أصحابتا كحران كنالكا إليس وحاوغوه رأي قفكان وينوسو قري مهماه صبراسدكي سووهلا قفك حيقا سوماليدو وحيكو مهمهذا صبراسدكي سهلا الله سبحانه وتعالى مضيعو كوا الصبرا الله نكوا الصبرا ayuu macigooda yahay qofkan xiga markaad wax jeceshahay waad samir badan tahay marka lagu jecel yahayna waad kibir badan tahay markaad isjeceshihiinna waad dood badan tihiin saaxiibada Ilays Jumca Kariim aad baad u mahadsan tahay walaal qofkan xiga dulqaadnimada badan doqonnimo ayay ku ekaysiisaa ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis baahi badan iyo bugto badanba waa la isku nacaa sabraasadkiisa waa helaa inna allaha maca as-saabiriin qof lala noolaado waxa ugu mudan kan marka aad la joogto aad ka hesho wehel iyo farxad markuu ka maqan yahayna aad dareento walwal iyo murugo ninkii sabraasadkiisu helaa dulqaad badan sameey si aad guul u gaadho jacaylka runta ah waa markii la isguursado inta kale waa sheeko dulqaadku waa geed qaraar oo soo saara miro macaan dulqaadku waa furaha guusha sabirka alla weyne wuxuu quraankiisa qiimaha badan inoogu sheegay qofkii ku sabra qadarka Ilaahay misana ku qanacsan qoraalka alla weyne inuu alla weyne maciisa yahay sabirka qofku uu ku sabraa qoraalka Ilaahay qadarkiisa run ahaantii qofkaasi waa liibaanay alla weyne wuxuu la jiraa qofkii sabra qofka dulqaadka badan doqonku dabaal ayuu moodaa darajo iyo danahaaga dulqaad baa lagu gaaraa quruxdu way dhammaan lacagtu way dhammaan xiisuhu wuu dhammaan waxaa soo haraya qalbi ka hufan xumaan una diyaarsan samaan raadi asaga ayaa waaraye waxaa fudud inaad wax jeclaato laakiin waxaa adag in lagu jeclaado jacaylku ma lahan indho way adag tahay inaad u sabirto waxaad rabto balse waxaa ka sii adag inaad lumiso abaalmarintii sabirka inna allaha maca as-saabiriin sabirka dhib walba oo aad marto dheef ayaa ka dambaysa guuldaraduna waxa ay ku bartaa waddada aad ku guulaysan lahayd nolosha haddii aad ka sugayso hal weji ogow noloshu way wajiye badan tahay waxaana kaliya waad uga badbaadi kartaa waa sabarka inaad badiso sabarka waa 3 inaad ku sabarto daacadnimada aad ku sugan tahay inaad ka sabarto macsida inaad ka sabarto balaayada inta aadan qofka jeclaan marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay ogow haddii uusan naftiisa jeclayn adigana jacayl kuma siin karo dad badan oo aragtida wejiga kaliya wax ku jeclaada gadaal bay ka qoomameeyaan sababtoo ah jacaylku marnaba kama dhasho quruxda wejiga balse wuxuu ka dhashaa quruxda qalbiga qofka oo aynu ku dooranno qurux iyo maal ma aha jacayl laakiin qofka oo aad ceeb kasta ku jeclaato ayaa ah jacayl danayn la'aantu waxay dishaa jacaylka ilowguna wuu aasaa gabadhu haddii ay jacaylkeeda koowaad ku fashilanto nolosheeda inta ka hadhay waxa ay ku noolaataa xasuusta jacaylkaas laakiin ninku waxa uu ku fikiraa abuurista jacayl cusub goortii aad tiraado waan ku jeclahay waxaad abuuraysaa miro ama ubax qof kale qalbigiisa waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso jacaylku ma aha qiiro keliya jacaylku ma aha dareen keliya jacaylku waa daryeel dhab ah ha u bedelin midabkaaga iyo naftaada si dadku kuu jeclaadaan ahow qofka aad tahay dadka saxda ah ayaa ku jeclaanaya dulqaadka aad qoyskaaga u muujiso waa jacayl dulqaadka aad dadka u muujiso waa xushmad iyo qadarin dulqaadka aad naftaada u muujisana waa kalsooni aad isku qabto inaad jeclaato nebiga sallallahu calayhi wasallam oo aad ka jeclaato naftaada ubadkaaga iyo wax waliba ayaa ah jacaylka jacaylku waa haddii aad qof jeclaanaysid inaad u jeclaato allah dartii ama saaxiibka ama saaxiibadda carshiga alle maalinta qiyaamaha waxaa harsanaya 7 shay qofkii ku sifooba waxaana ka mid ah rajulaani taxaabbaa fillaahi ijtamaca calayhi wa tafarraqa calayh hadalladu waxay shaabahaan furayaasha haddaad si saxan u adeegsato waxay xiri doonaan afaf waxayna furi doonaan qalbiyo dulqaadka nin aanan u dulqaadan karin musiibooyinka yaryar weligii kuma guulaysan karo waxyaabo waaweyn الصبر 3 الصبر على البلاء الصبر على المعصية الصبر على الطاعة qofka sidaas ayuu noo soo qoray waad mahadsan tahay walaal haddaad ogaan lahayd si degdeg ah in lagaaga samro markaad dhimato kuma aadan mashquusheen kasbashada qalbiyada ibnu aadanka ee waxaad ku mashquuli lahayd kasbashada rabbiga dulqaadku waa sida geed camba ah oo aad beeratay mar uun ayay miro kaaga soo go'aan ee dulqaado
bar nafta inay sabarto una qurxi wixii ay xugmisay qadarta oo u daa maalmuhu ha falaan waxay doonaane u sabar musiibo walba una adkayso ogowsa inaan lagu waaraynin adduunyada sug oo samir waxaad heli nabad ahaansho maxaa yeelay degdegu ma laha waxaan ka ahayn qoomamo iyo shalayto inaad sabarto oo aad u dulqaadato dareenno qalbigaada gubaya weliba adigoo aamusan waxay ka khayr badan tahay inaad samirto adigoo ilmaynaya guusha waxaa ka soo horreeya waddo ay maristeedu adag tahay ogowsa lama helo midhaha guusha ilaa sabar dheer kadib mooyaane sabarka lagu sabro musiibada waxaa lagu magacaabaa iimaan sabarka lagu sabro cunnada iyo arsaaqda alleh waxaa loo yaqaanaa qanaaco sabarka lagu sabro waxbixintana waxaa loo yaqaanaa oofin cali binu abi taalib allah ka raali noqday wuxuu yidhi sabarku waa labo mid waa inaad ku sabartaa waxa aad jeceshahay midna waa inaad ku sabarto waxa aad necab tahay culimmaduna waxay dhahaan sabarku waa ciwaanka ugu ballaaran ee nolosha iyo diinta maxaa yeelay noloshu marba waa xaalad diintuna waa wax lagu faray iyo wax lagaa reebay intaba waxaa lagu guntay sabar allahna wuxuu yidhi waaladiina sabaruu ibtigaa'a wajhi rabbihim waaqaamuu asalaata waanfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniyatan wayadra'uuna bilxasanati asayi'a ulaa'ika lahum cuqba addaar dulqaadku waa shayga keliya ee lagaga baxo dhib kasta laguna gaaro maqaam sare ogow jacaylka dhabtaahi waa sida dhalo uu ku jiro cadar yacni baraafoon haddii aan la isku buufin lama dareemo udugiisa dhabta ah noqo qof ay ka go'an tahay inuu horumar gaari karo waayo qofku haddaanu lahayn go'aan qaadasho dhaba way ku adag tahay inuu gaaro horumar shakhsiyadeed sabarka waxa aad sugtaa una samirtaa way kuu imaadaan samirku wuu adag yahay laakiin midhihiisu waa macaan qofka aad sugtaa ayaamo waa samirkaaga qofka aad sugto sannado waa noloshaada boqolaal weji oo qurux badan waxaa ka fiican hal qalbi oo daacad ah ha ka shallaynin inaad qof jeclaatay qofkaasna uu meel cidlaa kaaga tegay ilaan qofkaas wuxuu ku siiyey jaanis aad qof kuu qalma oo wanaagsan ku raadsato ha ka shallaynin haddii aad qof daacad u noqoto xitaa haddii uusan u qalmin in daacad loo noqdo dadka qaar waxay moodaan doqonnimo inay kaa tahay daacadnimada hasiin wadnahaaga qof aan aqoon sida wax loo jeclaado raaligelintu waa sifo dhifah oo laga helo kuwa daacadda ah oo keliya ha jeclaan qof aan ilaahay subxaanahu watacaala jecleen haddii ay ka fogaan karaan ilaahay adna way kaa fogaan doonaan ha ku khasaarin wakhtigaaga qof aan rabin inuu wakhtigiisa kula qaybsado ma dhimanaysid haddii aad weydo qof aad jeceshahay laakiin waxaad dhimatay marka aad weydo sharaftaada ma jirto cid mar kasta mashquul ah keliya waxay ku xihan tahay muhiimadda liiska aad qofkaasi ugu jirto jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto waana waxa ugu xanuunka badan ee la waayo dulqaadku waa shay muhiim ah oo ay dad tiro yar helaan jacaylku maaha wax sahal lagu dareemo marna waa sahlan yahay marna waa macaan marna waa cudur ka mida cudurrada ugu daran caalamka marnaba ha isdhaafin fursadda ah qofku jecel ku daneeya diyaarna u ah inuu ku daryeelo marnaba ha ku ciyaarin dareenka qofku jecel ha dhaawicin qalbigooda sababtoo ah hubaashii maalin inaad baraarugto ayaad ogaan doontaa inaad dayaxa weysay kolkaad xidigaha tirinaysay hooyo waa albaabka aad dunida ka soo gashay waana albaabka jannada aad ku geli doonto sababteeda marka daryeel hooyada alsabru cinda asadmati aluulaa jacaylku waa saddex jacayl dhaba jacaylku meelgaara iyo jacayl aan jirin noloshana waxaa lagu qaybsadaa jacaylka dhabta ah sabarku ma aha ilaa wakhtiga aad sugi karto balse waa sida wanaagsan aad u dhaqmi karto inta aad sugayso marnaba haysuran way kaa daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa ma helaysid qof kasta wuu garanayaa sida wax loo jeclaado laakiin qof kasta ma garanayo sida jacaylka loogu dhaqmo qofkan wuxuu noo soo qoray xigmado dhaadheer waxaa ka mid ah caqliga wanaagsan waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada ma jiro qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aadan adiga sirahaaga iyo waxyaabahaad u liidataadan u sheegin ugu dambaynna qofkan wuxuu yidhi siduu xigmadahan u soo waday isagoo aad u mahadsan xigmadahan oo dhan kama keenin maskaxdayda balse waxaan ka bartay waa adigoo ah walaal maahir iyo dhiirigeliya oo uu joogo walaal yaasir mukhtaar dhammaantiin allah idin xafido allahna hana waafajiyo fadliga maalinta jimcaha ay leedahay allah naga wada dhigo kuwii jannadiisa ku kulma insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu u samir xilliyada adag haddii aadan sabrin guul ma gaari kartid mana xaqiiji kartid yoolkaaga ka taxadar waxa aad hadda baranayso waxay sabab u noqonaysaa midhaha aad beri goosanayso maalin ayaad ku farxi doontaa midhihii aad beeratay ama waad ka shalaayi doontaa
xulashadii aad ku beeratay. Sonkor iyo cusbo waa isku qasmi karaan, laakiin xitaa quraanjadu way diidaa cusbada, waxayna qaadataa kaliya sonkorta. Dooro la socodka dadka wanaagsan, kana dhig noloshaada mid macaan. In dadku si geesinimo leh u qirtaan qaladkooda oo raaligelin ka bixiyaan waa wax aad u adag marmar, laakiin waa waxa ugu raqiisan ee badbaadiya hadiyadda ugu qaalisan nolosha ee la yiraahdo xiriir. marnaba ha ka walwalin hana isku mashquulin dadka gadaashaada ka hadlaya, sababtoo ah waxay caddeyn u tahay in noloshaadu aad uga xiiso badan tahay tooda. haddii aad si daacada u aaminto qof, aamin ilaa xad wax kasta oo natiijadu tahay. ugu dambayntii waxaad helaysaa saaxiib aad u fiican ama cashar aad u fiican. qofna ha ku nicin, hana ku dhibsan nabar meel ka mida jirkiisa ka muuqda, sababtoo ah dhaawac kasta wuxuu reebaa xagatin, yacnii haar. xagtin kastana waxay sheegtaa sheekadaasoo odhanaysa waan badbaaday. laga yaabee in noloshaada u socon sidii aad u qorshaysatay, balse waxay kuugu socotaa sidii Alle u qorsheeyey. xaqiiqdii Alle qorshihiisa ayaa ugu wanaagsan. sii wad dadaalka iyo ducada. qof kasta oo xil qabta waa tegayaa, waana bannaynayaa booska shaki la'aan. sidaa darteed had iyo jeer hamigaagu ha ahaado bixitaan guulah, dhaxal ka tag dhammaadkaaga. waxa muhiimkaa ma ahan in naloo sacabtumo markaan nimaanno, balse waa in nala xasuusto markaan tagno. sabarku waa malab aad ogaan doonto macaankiisa markuu dhuunta tago.